وقيس degan magaalada Jigjiga oo diinta Islaamka qaatay Maxamed waa magaciisa cusub waa aabaha qoyskani rabitaankayga ayaan ku qaatay diinta Islaamka ma jirto haba yaraatee cid igu qasabtay qaadashadeeda inkasta oo duruufo nololeed ay ku gadaaman yihiin noloshooda taasi haddana kama hor istaagin in gurigan yar ee jeengada ah ay rabbigooda ku caabudaan Allahu samad lam yalid wa lam yulad maxamed isaga ayaa ugu horreyn diinta qaatay kadibna waxa uu soo bandhigay xaaskiisa muddo kadibna waa ay ka aqbashay codsigaasi isaga iyo xaaskiisa Ilili waxa ay ku naaloonayaan nimcada islaamka oo dhawaan qulubtooda degtay ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah magaalada Jigjiga waxa muddooyinkii ugu dambeeyay aad isku soo taraya dadka qaadanaya diinta islaamka ee suuban xijaabo kani waa Xuseen Yoocale waxa bishii la soo dhaafay gacantiisa ku islaamay laba qof anigu horta waxaan ku dhiiriday markaan arkay dadku say u soo dhaweeyeen gabadhii ugu horeysay markaan clipkeeda ka duubayay anigu waan iska soo dhigay Facebook waxaan isla dadka qaar baa kooran doona maxaa u soo dhigtay laakiin ummadii islaamka oo dhan oo ku wada dhiiritay markaan arkay wixii farxad bay ku gelinaysaa sidoo kalena diiniyan waa arrin adag nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yadi Allahu bika rajulan wahidan khayru min humr an-na'am in hal qof ilaahay sababta ku soo islaamiyo wax walba ka khayr badan marka arrin fudud ma aha Axmed Daahir oo sabab u ahaa in qoyskani ay islaamnimada qaataan ayaa ah qofka kaliya ay hadda ka warqaba xaaladooda waxaan uu ka hadlay baahida ay u qabaan in la garab istaago fiican baan uga warhaynaa guriyoogii waxa waan u diyaarinay hadda waxaan diyaarun aan u sameynay oo kale wiil waxaan u sameynay diinta baro oo diinka islaamka iyadana u bilaabo salaadii baro quraankii baro wax walba waan u sameynay hadda gurigana waan u kareynay hadda aad bay noloshiisa kaga fiican yihiin wixii de muslimiintu ay uga baahan yahayna waa garabgal iyo maxaa ilaahay garab joogsi waxay nin walba wuxuu kari karo marka aad iyo aad buu iska fiican yihiin hadda noloshooda si fiican mar la soconaa bal dadka qaadanaya diinta islaamka oo ku soo badanaya magaalada Jigjiga iyo deegaanka Soomaalida ayaa u baahan daryeel iyo ka warhayn joogto ah waxaan ummadda islaamka ka codsan lahayn qoyska la qacan qabto la dhiiri geliyo hooy iyo hu iyo hantiba la siiyo la tusay inay diinta islaamku fiican tahay dadka qaniga ah ilaahay wuxuu siiyay inay siiyaan zakada oo xubnaha uu ilaahay inoo baneeyay ilaahay sheegay inay zakada ku baxaysay kamid yihiin dadka diinta loogu yeerayo ee qalbigooda la soo dumayo marka dadka waxaan oran lahaa la soo dhaweeyo cidii tawxiidka u qabatayna yeena sii deeyni oo meel cid ayaan kaga dhaqaaqin ha ka war hayso hadii uu awood saxta ka baxsan yahay ummadda islaamka ha u dhax qaado waa ina muhiimad waxa weeyaan in gacanta lagu hayo